kulanti wacan dhammaantiin. Fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar. Waxaynu halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira meesha uu ku dambeeyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Waxaa maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay xaaladda caafimaad ee halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa isbuucyadii dambe baahinayay xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Pyongyang. Mid ka mid ah telefishinada fadhigiisu yahay Hong Kong ayaa ku warramay inuu helay xog muujinaysa inuu geeriyooday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Wararka la xiriira geerida Kim Jong-un ayaa sii xoogaystay toddobaadkii la soo dhaafay, kadib markii bog ay wax ku qoraan dadka ka soo baxsaday dalkaasi lagu sheegay in Kim uu geeriyooday xanuun hayay tan iyo bishii Agoosto sanadkii hore. Agaasima ku-xigeenka warbaahintaasi ayaa wuxuu sheegay in ilo lagu kalsoonaan karo ay u sheegeen inuu geeriyooday hogaamiyaha Kim Jong-un, balse ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta wararka uu baahiyay telefishinkaasi. Haddaba goormay bilaabatay hadalhaynta dhimashada Kim Jong-un? Wararka la isla dhex maraya ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuradii ka soo wareegatay dhalashada aabihii oo ku beegnayd 15kii bishan Abriil. Kim Jong-un weligiis kama uusan baaqanin munaasabadaas xuska aabihii, wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qaybgali waayo. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay ilo xogogaal ah ayaa maalmo ka hor ku soo warantay in dowladda Shiinaha ay khubaro caafimaad u dirtay Kuuriyada Waqooyi. Saraakiishaasi caafimaad ayaa la sheegay inuu hogaaminayay sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Shuuciga ee ka arrimiya dalka Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim. Waxaa sidoo kale maalmihii la soo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong-un uu nool yahay. Dalka ay deriska yihiin Pyongyang ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay beeniyeen wararka sheegaya inuu dhintay ama uu xanuunsan yahay hogaamiyaha dalkaas. Moon Jae-in oo ah sarkaal siyaasadda arrimaha dibadda kala taliya madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka u sheegay in Kim Jong-un uu nool yahay uuna caafimaad qabo. Ka dowlad ahaan, halkaan arrintan ka taagannahay way caddahay, ayuu yidhi Moon, oo intaa ku daray in laga bilaabo 13kii bishan Abriil uu Kim ku sugnaa deegaanka Wonsan, sidaa daraaddeedna aysan jirin wax keeni kara shakiga ah inuu geeriyooday. Sidoo kale, saraakiil ka tirsan sirdoonka dalka Shiinaha ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in wararka sheegaya dhimashada ay yihiin been abuur oo uu Kim Jong-un nool yahay. Markii ugu dambeysay ee la arkay hogaamiyaha dalkaasi ayaa waxay ahayd 12kii bishan Abriil. Warbaahinta dalkaasina ma aysan sheegin ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay. Ma ahan markii ugu horreysay oo fagaarayaasha laga waayo hogaamiyaha dalkaas. Sanadkii 2014 ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah. Waxay taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay. Sidoo kale, xilligaasi waxaa soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgembiyey, hase yeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi. Haddaba haddii ay dhacdo inuu meesha ka baxo, yaa beddelaya? Haddii ay dhacdo in Kim Jong-un uu meesha ka baxo, sida ay doontaba ha ahaatee, ma cadda cidda beddeli doonta. Kim waxa uu xilkaasi ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaas, waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaasi uu yahay mid uusan cid kale damaaci ka geli karin. Gabar ay walaalo yihiin Kim Jong-un oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa u muuqata qofka iskale dhaxalka dalkaas, maadaama ay walaalo yihiin aadna ay ugu dhowdahay walaalkeed. Waxaa sidoo kale la sheegaa inay saameyn ku leedahay xukunka dalkaas. Xaaladda dhabta ah ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa mid kala caddaan doonta mustaqbalka dhow. Taliska dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa mid aad looga baqo, halka shacabkana ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin, taasoo yaraysay wararka laga heli karo gudaha dalkaas. Waa ku mahadsan tahay la socodka channelkan. Fadlan si aad mar walba noola socotid, subscribe-ka ha ilaawin. Mahadsanid.